Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaashiin ayaan luul. Waxaan idin leeyahay asxaabta waa idin salaamay insha allah. Waqti kasta idin tahay waqtiga ha idin wacnaado. Waxaan ka hadlayaa caawad ilaah yiraahdo baafintii walaalkay hooyaday ay dhashay oonan weli aanan helin baan caawa rabaa inaan mar labaad ku celiyo. ayaan dhaweeda mar lisoo wacay waxaa lii sheegay wiilkaas inuu dhintay, laakiin haddana waxay islahaan waay magacii way islahaadeen, laakiin waxaa islahaan waaye qabiilka wuxuu wiilka dhintay uu gadabuursi ka ahaa bay reer kale iigu sheegeen. wiilka walaalkay laftuu gadabuursi ka ahaa laf kale ayay ii sheegeen, wuuna noqon waayey. marka ilaahay naga garana inay iyaga qaldayaan iyo inay saxantaa wallaahi ma kala garanayo. kulley aniga wiilkaas dhintay walaalkay u maleeyey oo inay iyaga reerka ii sheegeen ee wax qaldayaan aan u badiyey, laakiin waxay ii sheegeen inuusan ahayn. marka waxaa halkan fariin oga dirayaa hadduu ilaahay yiraahdo 2 fariimood baan dirayaa. mid waxaan u dirayaa insha allah beesha Samaroon meel walba aad joogtiin, hadduu ilaahay yiraahdo aad maqlaysaan videogan inay iga soo jawaabtaan. wiilkaas suldaankiina hataa kolna loogu diro hadduu ilaahay yiraahdo in loo soo raadiyo. hooyadayo harsanaynin oo hooyanaynin baa raadinayso, walaalihiis oo dhan aa raadinayaan. aabbaha dhalay na insha allah waxaan leeyahay ilaahay ha ka boqo. wiilkan hadduu dhintayna asagaa dhalay oo lama dhahay maanta wiilkii waa la la-yahay, dadkiisana waa la la-yahay. aabbihii dhalay mar walba hooyo wuu soo waca wuxuuna ugu sheegaa inuu wiilka waalan yahay, uu geed ku xiran yahay. sida runtiina waxaas wax jira ma ahan. sawirana inuu uga soo qaado wuu diiday. inuu maaragta life uu ula soo hadalsiiyana wuu diiday. marka ilaahay ka baqo, hooyo waa waalid, maalin walba wax qaldan ayuu uga qaataa lacag. ilaahay ka baqo adeer, waxaan leeyahay adeer ilaahay ka baq. hadduu dhintayna si kalaa wax noo weydiisan kartaa, wiilka noo sheeg. hadduu nool yahay uu xanuunsan yahayna sida runta inaad ka sheegta ayaa wanaagsan. ma ahan inaa waasho oo hooyo maarata maalin walba lacag intaa soo wacda aa weydiiso. inaad tira ay soo gaartay baafinta ay gabadhaada baafinayso anigu ugu xiran yahay wiilka lamana helaayo. insha allah waxaad maaragta haddaa amarkaas dhiibaysa amarka ilaahay ayaa kaa weyn. wiilkeenana insha allah hadduu nool yahayna waa helaynaa, hadduu dhintayna allah u naxariisto. marka beesha Samaroon gadabuursi waxaan idin leeyahay walaalayaal, oo idinka codsanayaa codsi aan idinkugu soo gudbinayaa. suldaankiina hataa hadduu ilaahay yiraahdo inaad noogu gudbisaan. waxaa la dhahaa odayga wiilka dhalay walaalkay magaciisa. wiilka walaalkay waxaa la dhahaa xasan cabdiraxmaan xasan. qabiilkiisa waa gadabuursi, waa reer nuur insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. hooyadiisana waa ciise, marka waa reer boorame. hadduu ilaahay yiraahdo hana loo soo raadiyo. odayga aabihiis wuxuu qabay islaan caan ah oo sida lii sheegay hadda inay noosha inay dhimato anima garanayo, oo la dhaho magaceeda ayadana muxuba jirif baa la dhahaa baa layiri haddaana qaldaneen. islaanta waa iyadana islaan caana lagu yiri boorame. walaalayaal qofkii garanayo insha allah nala soo socodsiiya hadduu ilaahay yiraahdo. adeerkaas xitaa qofkii garanaya inaad la hadashiin, qabiil ahaan loogu tago, family ahaan loogu tago in lala hadlo. koley asagaa dhalay wuuna ogyahay. annaga muddaa noogu dambeysay wiilkeena 14 sano ka hor aan ugu dambeysay. waa qof anaga wiil ani iga weyn waaye, almost 50 iyo wax buu jiraa wiilkaas, nin yar ma ahan. 14 sano wixii ka horeeyay waa wada hadli jirna, waana wada xiriiri jirna. intii ka dambeysay waa weynay. uma malaynayo ani inuu maaragtay uu wiilkaas nool yahay, laakiin hadduu dhintay hataa inuu wuu dhintay na dhaho, alla yaa raxmana dhaho ayaa wanaagsaneed. laakiin qof aanan dhimashadiisana lagu soo xaqiijinin, noloshiisana aadan haynin, waxa waaye waa kuusii muuqdaa.
niyadaadana se uga go-do way adag tahay, laakiin haddii qofka geeridiisa laguu soo sheego waxaa weeye aabad naxdid, laakiin marka dambe qof islaamaa tahay waad iska sabreysaa. insha allah intaas ayaa idinka codsanaya. nimanka waxaan leeyahay gabdhaha markaa kala tagtaan ilaahay ka baqa. caruurta waxay ku fiican yihiin hooyadood inay haystaan. dhibaatadaas maanta nama soo gaarteen, hooyadiina dhibkaa muusa gaarin haddaana cunuga laga qaadan lahayn markuu yaraa. wiilkaas markuu yaraabaa laga qaatay oo loo diido dhibaato badan lagu marsiiyey. taas waay hooyaday markii dambena waxba may haysanin, mana aynan la xiriiri karin. markaa soo weynaana xerooyo qaxooti aan ku nooleyna taararka waa kala hadli jira, laakiin waxba jeeb maanan dhaamin, waxba uma diri karin. haddii aan hadda soo dhoofno qurbaha nimida walaalkeen wax tari lahayn, hadda 14 sano waaba intaan hadda qurbaha joogno. ani hadda 14 sanaa jooga, hooyana 12 sano meelahaas way joogaan, intaana waa raadineynaa. marka waxaan leeyahay ragga markaa gabdhaha kala tagtaan caruurta hooyooyinkooda ku wanaagsan yihiin, hooyooyinkooda ha loo daayo. gabdhaha caruurta laga qaadanayo ilaahay ka baqa, iska daaya. ma hayn kartaan maaragtay aayo caruur loo geeyey, dhibaatadeeday leedahay. ilmahaas badanaa ma badbaadaan, in yar mooyaane ma badbaadaan. 80% caruurtaas suuqay galaan, way xumaadaan. laakiin hooyo si kastay u xuntaa cunugeeda maasha allah way ku dhegantaa, wayna haysanaysaa. lagamana yaabo cunug hooyo haysa inuu aabihiis ka dhumo, laakiin cunug kasta oo aabo ula tago meel xun unbuu ku dambeeya. marka ilaahay ka baqa. wiilkaasna weli waa raadineynaa, mana helin. insha allah telefoonkeyga na meeshaan kusoo qoraya, marka horena oo kusoo qoray. walaalayaalow wixii akhbaar helahana la soo waco, commentiga ha liigu soo qoro. insha allah waxaa idinka rajeynaya hadde beesha Samaroon gurmad inaa ii samaysiin hadduu ilaahay yiraahdo. walaashiin ayaan luul intaas idinka rajeynaysaa, iyo reer Booram oo dhan ilaa iyo wixii xataa magaaladan aan joogo Gadabuursiga joogaan. waxaan ka rajeynayaa Gadabuursi kolley waxaa leedihiin suldaano iyo odayaal iyo cuqaal iyo waxaas oo dhan aa leedihiin. insha allah waxaan idinka rajeynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaa akhbaarna soo siisiin degdeg ah. ilaahay ha noo sahlo wiilkeena geeridiisa iyo noloshiisaba inaan helno. noona soo duceeya asxaabta kulli, ummadda walaalahayga muslimiinta kulli waxaa ka codsanaya inaa ii soo duceysiin sidii aan walaalkeen ku heli lahayna. insha allah ilaahay ha noo fudaydiyo nolol iyo geeriba hadduu ilaahay yiraahdo. ilaahay ha laga baqo. gabdhaha caruuraha ayaa laga qaadan. gabdhaha caruuraha markii la kala tago calafka dhammaada ayaa laga qaadan. hooyaday wiilkeedaas way qoomameynaysaa. maalinta haddii la siin lahaa wiilkeyga maan waaye inay dhahday. hooyaday wiilkeedaas magaciisa hataa iyo mar walbo waxay ku leedahay hooy wax sheegaya ma aragtay. hooy wiilkii Gadabuursi oo meel lagu sheegay waxay leedahay waa wiilkeyga. marka insha allah waxaa idinka rajeynayaa inaa akhbaar fiicanna soo siin doontaan hadduu ilaahay yiraahdo. asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. janalka nagala socotaan waa ayaan luul. janalka like, comment, share, subscribe intaba saara hadduu alla idmo. ilaahay yiraahdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.